السلام عليكم دمان انت كحرن سرت جعلك وانيقوا سائل علي وحنيدين وضا قصة جعل قصة سلمة بحضي أمر والد ايد ملان جعل كل يملو نكويلا وحري يرانتي سيكو هلي يلا البري او يملي وحوي خيو يخا qisadan waxay u dhacaysaa sida tan maalin maalmaha kamid ah ayaa wiili gabar isku bartay aaladda Facebook taariikhdu markay ahayd 10 bisha 11 2018 wiilka waxa la dhigi jiray Amiin gabadhana waxa la dhigi jiray Aamina Saara Amiin waxa uu ku noolaa dalka Finland Aamina Saarana waxa ay ku nooleed Muqdisho isbarasho kadib waxay noqdeen laba qof aad iskugu dhow saaxiib walaal intaba way isku noqdeen muddo 2 bil kadib waxa dhacday Aamina Saara ayaa Amiin waxa ay ku dhahday Amiin haddaan xiriirkeena jacayl u bedelano farxad ma ka helaa Amiin si lama filaana ayay ku noqotay arintaas waxa uu dhahay haa farxad waad iga helaysaa wuuna ka aqbalay xiriirka muddo kadib waxa dhex maray jacayl aad u qurux badan farxad reereen kalsooni galgacayl aan dhammaad lahayn xiriirkoodina waxa uu gaaray heer ay dareemi waayaan inay kala fog yihiin oo ay masaafo dheer u dhaxayso muddo 2 sano ayuu xiriirkoodii socday waxbana kama halaysaneen xiriirkii ay intaas soo wadeen waxa ay go'aan ku gaareen inay ka guul gaaraan oo ay isguursadaan nololna ay wadaagaan taariikhdu markii ay ahayd 25 bisha 4 2020 ayaa Amiin familkiisa oo Muqdisho ku sugan ayaa u dooneen gabadhii uu jeclaa wada hadal kadib labadii famil waxa ay ku heshiiyeen oo ay go'aan ku qaateen arooska iyo meherkuba inuu dhici doono galabta Jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay 15 bisha 6 2020 Amiin iyo Aamina Saara farxad ayaa ka badatay Amiin waxa uu niyadda ka dhahay guushii kugu horeysay ee aad nolosha ka lahayd waad gaartay maanta farxad uma dhinneen asxaabtiisa xitaa waa uu la wadaagay farxadda ayay la qaybsanayeen laakiinse nasiib xumo 2 biri ayaa ka soo wareegatay doonashadii gabadha kadib waxaa dhacay akhbaar xun oo aad loogu naxo familka gabadha ayaa ka baxay balantii guurka iyo faataxadii la kala qaatay iyo heshiiskii ay ku wada hadleen labada famil Amiin arintaas fajac ayay ku noqotay waa uu malaysan waayay murug iyo naxdin lama filaana ayay ku noqotay wax uu sameeyo iyo meel uu wax ka bilaabo ayuu garan waayay gabadhiina sidoo kale waayo arinta iyada waxba kama bedeli karto wiilkana waa ay jeceshahay waayo arinta waa arin family Amiin isla markiiba waxa uu go'aan ku gaaray inuu iska ilaabo gabadhan maadaama uu heli karin awoodna uusan u lahayn inuu hantiyo gabadhaas waalidkeedana ay u diideen ugu dambeyn waa uu iska wada xiray meel walba oo ay ka wada xiriiri jireen waxa uuna isku dayay inuu is-ilowsiiyo muddo kadib xanuunkii waa uu ka yaraaday weliba si tartiib asagoo isku ilowsiinaya ayaa Aamina Saara dib u soo raadisay taariikhdu markii ay ahayd 23 bisha 7 2020 waxa ayna ka dhaadhicisay in aanan si fudud ku kala tegi karin waayo waxa ay ku dhahday wax walba waxa ka qaalisan farxadda jacaylkeena Amiin waa uu ka aqbalay waayo waa beer wax jecel gabadha aad ayuu u jecel yahay walina ma uusan ka sabrin jacaylkoodina horay ay u sii wateen maalmo kadib gabadhii ayaa waxa ay u soo dirtay
fariin uu ka naxo waxa ayna ku dhahday sida tan: Assalaamu calaykum Amiin, see tahay xaaladda ka waran? Waxaa rabaa inaan wax kuu sheego. Marka koowaad waxaa tahay qof aniga xiriir igala dhexeeyo, mar kastana waa ay ixtiraamtaa. Aniga familkeyga waxay rabaan inay igu daraan qof ayaa lagu siiyey ayaa lii dhahay. Qofkaas ayaan kuugu duceynay ayay ii dhaheen waalidkeyga. Anigana familkeyga ducadooda ayaan qaatay. Anaga marka hore dad wax kala qarsada ma ahayn, mana rabo inaan qalbiga kaa dhaawaco. Noloshaada inay faraxsanaato ayaan jeclahay. Amiin, marna saaxiibkey ayaa tahay, marna walaalkey. Waxaan kaa rabaa inaad noloshaada ka taxadirto. Anigana waan kuu soo duceynaa markasto inaadan dhibaato arkin. amar waalid eed ma lahan. dhegayste ama daawade, haddii ay tan oo kale ku qabsan lahayd maxaa samayn lahayd adiga?